munaasabadani oo ahayd mid siyaar ah loo soo agaasimay ayna goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland, agaasimayaasha wasaaradaha warfaafinta, cadaaladda, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland, maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama, salaadiin, aqoon-yahan, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo dadweyne aad u tiro badan. munaasabadani oo ujeedkeegu daarnaa daahfurka telefishinka Sky Cable qaybtiisa Boorama ayaa waxa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay Dr. Khalid oo kamid ah mulkiilayaasha telefishinka Sky Cable, waxaana uu ka warbixiyay telefishinkan iyo waxa uu qaban doono. waxaana uu yiri Sky Cable TV kuma cusub Somaliland 2020kii bilii u dambeeyay ayaa waxa laga daahfuray magaalada Hargeysa, caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland. kaasi oo yimid waqti baahi badan jirtay, tifiye badan jireen, haddana wuxuu ka dhex muuqday ama uu ka noqday ubax ka soo dhex baxay tifiyadii jiray. isagoo sidaa waxa uu leeyahay TV-ga Sky Cable TV in uu leeyahay barnaamij inta ka ballaaran oo maanta aragtaan daafurkiisa u horeeyay maxay dhaanay magaalada Boorama, gobolka Awdal, caasimadiisa, inuu yahay TV fuliye service badan oo baahi badan gobolka looga qabo. waxa uu ka kooban yahay Sky Cable TV channels ka kooban diini oo maxay dhaanay ka baxayaan muxaadarooyin waaweyn oo culimadeena waaweyn ee joogto gobol walba. waxa kale oo la socod waxa la yiraahdo barnaamijka loo yaqaan dhallaanka. waxaan loobin maxay dhaanay dumarka iyo hooyooyinka guryaha jooga. waxa yakana ugu darnay waxa loo yaqaano filimaan turjuman oo Soomaali ku turjuman oo loo yaqaano cidii daawatee fan project bahalada la yiraahdo ama Hindiga la yiraahdo inay la socon karaan iyaga oo Soomaaliya. waxaan ku dadaalaynaa ama sameyn doonaa in gobol kasta oo Somaliland ay ka mid tahay maxay gobolka Awdal ee Boorama inaanu baahino ciyaaraha geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda cadaaladda Somaliland, agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama, salaadiin iyo mas-uuliyiin kale. waxayna dhammaantood soo dhaweeyeen telefishinka Sky Cable. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa وقاطعي وعاونا وانت تقول لهم أخوي كنت فحكى عن هذا وجماعة تجيب تسير تجيب كل ما أنت مسوق على واحد كذا إن وكسروا باليوم قبل حسب قال يا عمو فايبر أوبتيك سير في واحد من ستة شهور حاوى أيام مطالبة من الكون وصل سيرة سوق الواحد يطلعون من واحد يطلعون من التبليغ واحد يطلعون من الجبل تميز ذاتها ما أنت حروت سير الرئيسة السلطة وحنا كده تغيير التعلق طبعا وهذا موضوع وبيسوي اليوم قبل حسنا فايبروتيك إن عيالها هو الأوضة وقيد هذا هذين المتبع يجتول يلا عيال الكرامة إذا قيد من هذا كذا على الدورة وصل لا يفهم وتبي توصل أي أوروبي وصلي الدورة برنامجها سياسة iyada dhaqaale ee nolosha ku taabanayana qayb lahaad ku qaadan doona oo si toos ah ayaa runtii bulshada wax runtii loo wadaagay. Programka Sky Cable TV waxa weeye waa dhallaanka iyo sport. labadaas ugu weyn oo wararka iyo waxa la yiraahdo documentary meel ka wada daawaday oo jiraan ayada soo raacaan inay documentary turjumay ay xaqla soo raacaan ayaa laga yaabaa maybe in filmada kuma qaaweyn ay ku jiraan laakiin sport waa number 1 iyo dhallaanka. Sky TV wuxuu ka mid yahay TV-yada isa ugu ganacsiga lagu taxayiray runtiina waxa weeye waa laga filayaa inay ay bixiyaan quality-ga service ay bixiyaan quality-giisa iyadoo qalmeyn doonaan ama waxyaalaha ay kala qaadayaan inay ka soo baxayaan insha Allah tacaala waa وجينا فينا هنا غير الوضوء TV عالمي ورجعت على TV العرب إن شاء الله فينا هنا أو TV الصومال إن شاء الله يكون TV الأمور هنا أقول إن شاء الله فينا هنا أو الجسدية
dhalinyarta hal abuurka keenay fikirka quruxda badan keenay ee magaalada soo kordhiyay ganacsiga waxaynu naqaanay oday intuu dibadda ka yimid lacag badan soo shaqaystay inuu ganacsi furto kaawun daba president maanta isbedel baa dhaco dawayna ka arkaya Khalid ba agaasimiye ah waa mulkiile waa dhalinyar intii uu buuxiyay سعيد إسبان وعلى هاي سودو أيو هروبرك عطوس بيس إن شاء الله سودو واركم أصدق أمبارح يوم ما شفتي أنا كنت أشوف بيسي أدي فان أنا سمع هذا تيجو قبلي يعني على أمبارح يوم هذا dhankooga waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Maroodi Jeex waxaana hadalka uga dambeeyay maayir ku-xigeenka degmada Boorama Yaasiin Daheeye iyo barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro waxaana hadaladoodii kamid ahaa businesska ama ganacsiga ay keeneen cable TV waxaan u ducaynaynaa inay ka faa'iidaan oo noqdo ganacsi lagu faa'iido oo horumar gaara reeboorama waan garanayaa waa xadaariino waxa la yidhaha inta badan waa gobolkii aqoon waa gobolkii aqoontaasi laakiin waxaa la rabaa barnaamijyo badan baa halkaa laga sheegay oo fara badan barnaamijyada faraha badan leh ee ay ku jirto diinta ee ay ku jiraan maxaa kula waxyaabo badan oo entertainment ay ku jirto aqoontii kale kolley waxaan u malaynayaa ama aan aaminsanahay in nin walba qaadan doono cibad rasiifara anigoo kama qaadanaya caawo kabirkaan noqonaya kuwa qaadanaya waxaa laydinka rabo ee laydinka fadhiyo gobolkan iyo degmadani intan iyo inu dhow maaha markaa waxaan leeyahay ammaanta badan ha isdhiganina wixii laydinka sugayay weli idinkaba dhowo waa laydinka sugayaa telefishinka waxaa saaran in laga shaqeeyo waxa local production-ka dalka ka soo baxa inay dadka ku dhiirigeliyaan dadku inay isticmaalaan waana looga fadhiyaa markaa barnaamijyadoodu inay noqdaan caawa anigu waxaan qaadanayaa 20 ka horeeya 20 ka isuduwe gobolka anaa u qaadaya intuu nooga baahan yahay horta hiilkiisu waa kaa in badan baynu reer Booramo TV kale halkan uu nimankiisa naga qaado inaga diro u taagnay midaynu halkan kula xisaabtamina hadda leeynoo keenay aan keena Amir Ramadin leey ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay oo hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin waxaana uu yiri barakallahu fiikum waxaana rajaynayaa kuwa badan oo kale inay noo yeelaan la yimaadiin creativity fiican oo hal abuur waxaana nimika diyaar garaynaynaa noo dhow intellectual property rights-ki hal abuurkaad keento uu ku xafidnaanaya laga bilaabay imika marka la yimaada hal abuur fiican idinma lihi nin baa waayidhi intana jiro intana waan haystaa anugu yani shaqadana waa in adigu samaysaa sameeya idinma lihiye waa waan oo dadaalan idinlah isgaarsiintu waa horumar laakiinse isgaarsiinta si khaldan haddii wax loo isticmaalo waa waxun computerka la yiraahdo the bug you give the bug you get waxaad ku tuurto baa ku soo bix tanna waxa weeyaan haddaad qalloociso de waxa ka soo baxaya wax negative waxaan jecelahay inaad u isticmaashiin sida fiican Sikariya Cabdi Sheekh Farax Sikariya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyaal TV magaalada Boorama